iyadoo weli dadaal aad u xoogan loogu jiro ciribtirka gudniinka hablaha yaryar ayaa haddana waxaa weli muuqanaya in qaar badan oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah aysan ilaa iyo hadda garwaaqsanin gudniinka fircooniga ah ee haweenka lagula kaco inuu yahay xadgudub. haddaba si arrintani xal waara loogu helo waxaa Kismaayo lagu qabtay dood wadaag lala yeelanayo daneeyayaasha oo ku saabsan qabyo qoraalka sharciga ka hortagga gudniinka fircooniga. madashan oo ay hormuud ka ahayd wasaaradda haweenka, arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo taageero ka helaysa hay'adda SWSC ayaa waxaa ka qayb galay xubno matalayay wasaaradaha Jubbaland sida arrimaha gudaha, cadaaladda, dastuurka, tan shaqada iyo shaqaalaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. waxaana la isku dhaafsaday doodo la xiriiray sharcigan oo horey la tashiyo badan looga sameeyay. Maxamed Xuseen Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Jubbaland, ayaa sheegay maadaama ay iyagu mas'uul ka yihiin sidii ummadda loo fahansiin lahaa tacadiyada dhacaya ay sharci soo bandhigeen kaas oo muhiimadiisa leh. wasaaraddu ayada oo tixgelinaysa baahiyaha loo qabo iyo dhibaatooyinkan xilliga dheer jiitamayay sida wax looga qaban lahaa waxay isu sameysay isxilqaan in ay sameyso sharci waafaqsan diinta islaamka. ahmiyadda ama goolka aan kala leenahay waa ognahay gudniinka markii laga hadlayo waxaa jira raad diinta islaamka uu ku leeyahay bulshadan iyo ummadan dhibaato ku reebay inuu yeene waa wax in badan aan dhamaanteen ognahay. kulamada noocan oo kala ah ayuu mas'uulkani tilmaamay inay tahay sidii la iskugu xiri lahaa shacabka iyo dawladda isla markaana looga wada shaqayn lahaa dhinac kasta, isagoo kula taliyay inay afkaartooda si xor ah ugu biiriyaan qabyo qoraalkan. maanta halkan waxaan u joognaa kulankani discussionka ama wada hadalka laga qabanayo. waxaan rabnaa inuu inta badan noqdo wax araadiina lagu tixgeliyo adna fikirkiina saliimka ah aad ku kordhisan. labada maalmood uu socon doonana waxaan filayaa in waqtigiina aad soo horeysaan uu noqdo wax anfac leh oo bulshadii anfacana inay ka soo baxaan. agaasime Maxamed Xuseen Maxamed ayaa intaasi ku daray in waalidiintu ay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay ubadkooda ayna tahay in ay ka dhowraan xadgudubyada loo geysto. saad ogtihiin dhamaanteen waxaan nahay waalid, waxaan leenahay awlaad, waa mas'uuliyad wadareed ee dhamaanteen wada saaran in aan awlaadana bahal ku noqonona jirkooda marar qaar aan jarjarna waa wax iyada naftirkeeda xisaabaadku ku jiro. si kastaba ka qaybgalayaasha kulanka oo fursad loo siiyay inay ka doodaan dhibaatooyinka caafimaad ee uu leeyahay gudniinka ayaa qaarkood ka sheekeeyay gabdho naafo u ah gudniinka iyo kuwa dhibaatooyin dhanka dhalmada ah ay haysato, waxayna isla garteen in muhiimad gaar ah ay leedahay ansixinta iyo dhaqangelinta sharcigan kadib markuu ka baxo qabyo qoraalka. Cabdulaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga Ariel, Kismaayo.